yaasha dhaqanka madaxda heer gobol iyo heer degmo xildhibaanada bahda saxaafadda degmada qoyta maamulkeeda iyo dhammaan ummadda reer togdheer waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runaantii hadal badan iminka nooma yaallo waa mahadnaq inaan idiin mahadnaqno soo dhoweyntan baaxadda leh aad noo samayseen oo nagu sii abuuraysaa kalsooni waxaan aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa waxaan mar labaad ilaahay ugu mahadnaqayaa gobolka togdheer markii hore aan badho saabka ka ahaa xilli doorasho ahaa xilli abaari jirtay ahayd xilli cudurradii ka dilaaceen bay ahayd aynu ilaahay inagu guuleeyey oo aan wax horumar ah oo la taaban karo in shaqada yowmigaa mooyaane la qabto laakiin maanta xukuumadda cusub ee uu hoggaaminayo madaxweyne cabdiraxmaan oo ii soo xushay baan aad iyo aad isaga iyo ugu mahadnaqayaa madaxweynahana mar labaadka waxaa taa u leeyahay horumar waxa la qaban karaa marka xukuumaddu ay bilowga tahay ee hay-adihii ay soo noqdaan ee doorasho laga baxo laakiin sanadka ugu dambeeya doorasho lagu jiro runtii waa markii dadka siyaasiyiintu qaybinaysay bay ahayd waan ka xumahay xilligaa inkastoo waajibkaygii qabay inaan gutay haddana may ahayn maanta burco waxaan u rajaynayaa degmooyinka ay ka kooban tahay iyo gobolkaba in maamulka iyagu gacmaha isqabsan doono hadday tahay degaanka hadday tahay gobolka iyay tahay hadday tahay isuduwayaasha ka wakiilkaa wasaaradaha waxaanu qaban doonaa wax la taabto ayaan ilaahay ka rajaynayaa xukuumadda maanta waxay la kowsatay wanaag bay la kowsatay wasiiradii uu kuwa wareegayaa hadda laba wasiir baa ina dhaafay nin waliba inuu shaqadiisii muddo dhow wixii uu qabanayay iyo wixii uu xogogaal ku soo noqday gobollada inuu isu keeno ayay xukuumaddu go'aansato waa kala socotaan kolley miidiyaha ka maqasheen waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay waddadii burco iyo oodweyne iyo hargeysa oo iyana bilaabantay oo aanu la kowsanay oo dhowr jeer horeyta la dhagax dhigay waxaa kalaan runtii hadalkayga berri baan u dhiganayaa mashaariic badan iyo wanaag badan baa gobolka ku soo fool leh waxaan dadweynaha reer burco maamul ahaan waanu hanan doonaaye in dadweynuhuna ay nala gartaan ayaan rajaynaynaa wax badan baa laga qaban doonaa gobolka togdheer oo bushaare ah baan idiin sidnaa xilwareejintaanaan kaga hadli doonaa waan idin salaamayaa waxaan leeyahay soo dhoweynta un baan idinka mahadnaqaayey waa mahadsantihiin waa inoo berrintii xilwareejinta wassalaamu calaykum